الرحيم waxaa maanta shirkooda caadiga ahaa golaha wasiirada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka xafiiska ama hoolka shirarka ee madaxtooyada magaalada Baydhabo waxaana shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Xasan Faqi ajandaha shirka maanta wuxuu ahaa amniga guud ahaan 18 degmo ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo 3 gobol guud ahaanba waxaana looga hadlayay sugidda amniga ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wasiirka amniga gudaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Elay oo ku tagay degmo kamid ah degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya booqasho dhanka amniga la xiriirtay degmada Qasax Dheera sidoo kale degmooyinka kale ee koonfur galbeed insha Allah uu tagi doono kuwaas oo isbedel ka muuqda dhanka amniga ah warbixinta oo ka jeediyay golaha wasiirada waxay ahayd in guud ahaan deegaanada koonfur galbeed ay amnigooda maanta uu aad u wanaagsan yahay sidoo horena uu aad ugu wanaagsan yahay markii loo eego dhanka amniga sidoo kale waxa warbixin ku aadan qaxootiga iyo dibadejinta ee halka ka jeedisay wasiir dawlaha dibadejinta iyo waxa warbixin kulanka wasiirada ka jeedisay wasiir dawlaha dibadejinta iyo jaalidaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Safayo taasi oo ku saabsaneed qaxootiga guud ahaan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo hadda ku sugan xaaladooda sida ay ahaan jirtay iyo maanta sida ay tahay iyo guriyeen loo sameeyay sidoo kalena mashaariic badan oo hadda loo hayo oo guriga loogu dhisi doono haddii la yiraahdo dibadejin loogu sameyn doono guud ahaan dadkii laga keenay ama ritaaniska ahaa ama dib loo soo celinayay ama ha ahaadaan kuwii ka soo barakacay sidoo kale waxa warbixin golaha wasiirada ka jeediyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdullaahi Fanax kaasi oo ku saabsaneed shirki ka dhacay halkan oo isku yimaadeen wasiirada ciyaaraha iyo isboortiga ee guud ahaan dalka maamul goboleedyada iyo sidoo kale wasiirada federaalka ee dawladda koonfur galbeed dawladda federaalka Soomaaliya Qadiijo Diiriye oo shirkaasi socday 2 maalmood oo halkan magaalada Baydhabo ka dhacay ajandihii shirkana ay u qaybiyeen dhammaan golahii wasiirada iyo go'aamadii ay isku raaceen golahaas wasiirada ahaa oo ka koobnaa 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo sidoo kale dawladda federaalka wasiirka dhalinyarada isboortiga marka ugu dambeyn waxa soo gabagabay oo soo xiray shirka kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha taasoo dardaaran badan u jeediyay wasiirada kuna amaanay wasiiradii wax qabadka la yimid inta kalena insha Allah laga rajeynayo inay wax qabad dhaba la yimaadaan inta badan golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya waxay har iyo habeen u taagan yihiin sidii umadooda ay ugu hagi lahaayeen hanaanka dawladnimo waa sidoo sheegay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha mudane Maxamed Xasan Faqi. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.